daawadaha sharafta leh ma ogtahay in maskaxdeenu ay tahay hantida ugu weyn aan haysano. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu na siiyey maskaxdaani aad bay u yar tahay. Culayska maskaxda waa 1330 garaam hal kiilo iyo xoogaa. Maskaxdaas waxay isticmaashaa jirka wax oksijiin neefsado 25% ruwac ka mid ah kaligeed baa cabta. Maskaxda waxaa ku jira balaayiin unugyo ah. daawada ma malaynaysaa awood intaa la eg inaad sidato. insaanka maskaxda ku jirta awoodda alla siiyey ma isticmaalo 10% mooyee. maskaxda bini'aadanka 400 milyan camaliye xisaabay daqiiqad samayn kartaa. maskaxda bini'aadanka 30 bilyan macluumaad ayay sikin macnaji ku samayn kartaa. ani kombiyuutar dunida yaalsaan wax ma u qabto. awoodda maskaxdeen inta ay la eg tahay waxaynu anaga ku isticmaalo aad u kala yar. inagana waxaa shaqo ka dhiganay awoodda intaa la eg inaan cadilno oo aanay waxba qaban. waxaan halkaan kugu soo gudbin doonaa labada hanti aan wada haysano haddana aan wada dayacnay, maskaxdeena iyo waqtigeena. haddii aad ku cusub tahay janaalka like saar, ku soo dhawow xikmaso. magacaygu waa Jaabir Cusmaan. halkaan kaga bogo xogo badan aad wax badan ka faa'iido doontid. haquusan weliga isbedel inaad raadiso laba shay ay u baahan tahay. 1. raadi fursadaha nololeed. 2. cabsan ee khatarta qaado. daawade isbedelka bini'aadanka caqliga ayuu ka bilowdaa. haddaba daawade hadda bilow isbedelka nolosha. guusha aad bay u sahlan tahay. sameey wax hagaagsan, u sameey si wanaagsan, kuna sameey xili munaasib ah. waad ka aqoon badan tahay intaa malaynayso in ka badan. ogsoonow aqoonta aan lahayn fulin waxay ka liidataa jaahilnimada. daciiftinimada ugu weyn waxay naga haysataa inaan ka quusanay soo celinta tijaabada mar kale. ogsoonow waddada ugu huban ee guusha waa isku dayga hawsha marar badan. daawada mushaakil kasta aad ka baqaysid waa fursad weyn. qisooyinka guusha waxa ugu waaweyn waxa buuga ku xariiqay dad gartay fursadaha ku hoos duugan mushaakilada kadibna ugu dambeyn u bedelay guul. waqtiga waa hantida ugu weyn aan haysano. waa raasimaalka ugu badan. waa waxaan la iibsan karin oo la bixin karin oo la amaahan karin oo meel kale laga soo heli karin. daqiiqada ku dhaafto dib u soo heli maysid. dhammaanteenu waxaynu qabanno 3 ayay u qaybsamaan. waa wax anfaco, waa wax dhiba, waa wax bilaa micno ah. wixii waqtiga kaaluminaya faa'iido adduunyo mid aakhir ku lahayn isaga tag. mar walba waxa maskaxdaada ku haysaa waqtiga wax qiimaha u sameeyo waa sida loogu faa'iideysto. hantida dhabta aan haysan waa cimrigeenu waa waqtiga waa wax u baahan in si xoogan aan ugu fikirno. xasan al-basri wuxuu yiri ya ibn aadam inma anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. oo micnaheedu tahay ibn aadam waxa tahay maalmo, markasta oo maalin tagto waxa taga qayb ka mid ah. nabigeena suubnaan naxariis nabadgelyo korkiisa aatee waxa uu yiri laba nimco dadka intooda badan ku kadsoomeen waa caafimaadka iyo firaaqo waa waqtiga dheeraadka aan haysano. jooji waqti lumiska walaal. isxisaab intaan lagu xisaabin 86,400 sekin ayuu qof walba haystaa maalintii. imaam ibn qayyim al-jawzi waxa uu yiri waqtigoo la dayaco dhimashaday ka daran tahay. hadafkaaga hadduu cad yahay waad gaaraysaa. nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee wuxuu yiri ku dadaal wax ku anfacaya, ilaahayna kaalmayso, hana caajisin. imaam al-basri wuxuu yiri nafta hadda xaq iyo wanaaga ku mashquulin iyada baadilka iyo xumaanta kugu mashquulinayso. haddaba daawade qof kasta oo naga mid ah wuxuu haystaa 24 saac maalinkii. haddaba adiga isweydii maxay ku baxdaa maalintaada iyo habeenkaagu. waxaa kuu soo baxaya inta aad waqtigaaga aad ka faa'iidaysato waxaa ka badan inta aadan xitaa ogeyn meel uu ku baxay waqtigaaga. balse waxa muhiimka ah waa waqtiga inaad isku maalgeliso. waxaad ogaataa guusha ma ahan lama filaan. guushu aad gaartay ama aad sugayso ma ahan nasiib. waa wax laga shaqeeyey oo u baahan shaqo. mid ka mid ah sirta guusha ayaa ah si aad u gaarto wax aad doonayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad raadiso qof gaaray waxa aad raadinayso kadibna aad samayso wuxuu sameeyey. si aad u gaarto guushaas waadna gaari doontaa. u adeegso maskaxdaada iyo dareennadaada si aad yoolkaaga ugu gaartid. ha u adeegsan inaad waqtigaaga ku burburisid. waad samayn kartaa daawade subax walba markaa soo toosid waa inuu jadwal kuu degnaadaa. aad dhahdaa maanta maxaa ii qorshaysan. aad ku fikirtaa maanta waa inay shalay igaga duwanaataa. aad mar walba hadaf iyo yool cad aad leedahay. mar walban aad riyotaa riyo weyn. aadan ku mashquulin baraha bulshada. aad danahaaga ka raacato. aad tahay qof yool leh shaqadaada, horumarkaaga, nafsadaada. aad wax badan ku soo kordhisaa. aadan ku riiqmin baraha bulshada. aadan mar walba aad joogin TikTok. mar walba tahay qof ka fikiro danihiisa gaarka ah. mar walba ka fikiro maxaa ii dan ah, maxaan qabsadaa. sanadkii hore iyo sanadkan maxay isdhaamaan. maanta maxaan faa'iidaa, maxaan aqriyaa, buug noocee aqriyaa. jadwal noocaas inuu kuu degsan yahay daawade maskaxdaada awood intaas leeg ayay sidataa. qofka la rabo inuu horumarka gaaro, inuu wax aqriyo, inuu jimicsi sameeyo, inuu wax badan xigmado kororsado waa adiga. waqti ayaa kugu socdo. sikin walbo kaa go'do cimrigaaga ayay ka go'day daawade. waad daali kartaa, mushkilad baa kaa hor imaan karta, laakiin
laakiin waxaa loo baahan yahay inaad ka dulboodo, waxaa loo baahan yahay awooddaada kugu kaysan inaad dib u isticmaasho, waxaa loo baahan yahay inaad isdhiibin, nolosha isdhiibka ayaa ugu liita, waxaa loo baahan yahay inaad tiraahdo waa qaban karaa. waxaa la sheegaa qofka ugu isticmaalka badan maskaxdiisa ee dunidan soo maray inuu ka faa'iidaystay maskaxdiisa 12% keliya. taas micnaheedu waa awoodda ay leedahay maskaxdeennu ma xadidno mana adeegsano inta badan. warka wanaagsani wuxuu yahay mar kasta oo aad adeegsato maskaxdaada waxaa sii kordhaya awoodda ay leedahay sida xubnaha jirka intooda kale. tusaale, dadka orda waxay u waawan yihiin lugaha, kuwa feertama waxay u waawan yihiin gacmaha, kuwa fakira waxay u wan yihiin maskaxda. noloshaada dooro waxa aad ka fikirayso, waxa aad qabanayso, cid aad la saaxiibayso, waxa aad doonayso iyo inta aad doonayso. adiga ayaa xaq u leh inta aad doorato, balse talada aan ku siinayo waxay tahay u fakir si togan, ku fakir wax toosan, ka fakir tabta ugu wanaagsan, la tasho kuwa soo tijaabiyey nolosha. ha ku qancin in aad noqoto qof han yar, ha ku qancin in lagaa horeeyo, ha ku fakirin wax yar, malee wax wanaagsan, ku fakir wax wanaagsan, raadi wax wanaagsan, ilaahay weydiiso wax wanaagsan. ugu dambayn, nafteeda iyo naftiina waxaan bogaadinayaa inaan wakhtiga ka faa'iidaysano, aan maskaxda awooddeeda si dhab u isticmaalno, aan adduunka wajahno, maalin walba aan soo toosno noo ahaada maalin cusub oo fursad allah uuna siiyey. waa inaan si dhab aaga faa'iidaysanaa, aan wax ku baranaa, aan ku shaqaysanaa, aan xirfaddeena wax aaga qabanaa, aan cilmi ku sii faa'iidaysanaa. wakhtiga dheeraadka aan ku lumino baraha bulshada wax aan faa'iida noo lahayn waa inaan wax ka beddelnaa. isbeddel sameey walaal, waa samayn kartaa. isbeddelka nolosha wuxuu ka bilowdaa caado xun aad leedahay aad iska beddeshay caado wanaagsan u beddeshay. mar walba waxaan idin rajaynayaa guul iyo inaad ka mayro dhalisaan himilada iyo hamiga aad leedihiin. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena like saar, ku soo dhowow xigmaso. intaan ku kulmi doono muuqaal aynkaan ah waxaan idinkaga tegi doonaa sidaas iyo nabadgelyo. ammaano allah.